سعد موسى يعيد قالوا مانتا قاونانتا أيان إذكروا هاللايا waxa socda ee dhacaya maahan waxaan anigu ka musikaraayo halkani waxaan u fadhiyaa inaan ilaaliyo gobonimada reesha qisaxaad dhamaantood boo duudka ay ku sitaa ninkii qaldanna cid allaale cid doona ahaadee inaan khaladkiisa aanu sheekii saxsanna ay dhahdo waa saxsan tahay wartolkay reesha qisaxaad kale oo dhan waxa ay leeyahay marag iyo marqaatiidka ay digashay haddaan saxsanay waa saxsan tahay dhaha haddaan khaldanayna cadiyo waa khaldan tahay dhaha waayahay aan ku horeyntaan arrinkaasi u gudagelin fariin shacabka reer Somaliland ku socota oo ka timid askari kamid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo badadiinu taqaanaan oo loo garanog yahay taliye fadhiye ayaa baaqani idin soo diray haddaan qaadanaysaan iyo haddii qaadanaynba idinka ay idin jirtaa dhamaantiin aad baan islaamiga shacabka Jamhuuriyadda Somaliland kullu hal qodob baan jecelnaa ka hadla maanta halka qodobna wuxuu daaran yahay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo calanka Puntland ay u nikinayaan war hal mid baan xasuusinaya ciidanka Puntland ama maamul goboleedka Puntland ma ogtiin inuu yahay cadawga koobaad ee Somaliland leeday oo ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ee furimaha hore ka dagaalamaya rag ay la dagaalamayaan ba inay yihiin cadawga daacishka ku ahiba inuu yahay ciidanka Puntland ma ogtiin war calankiina Jamhuuriyadda Somaliland ee tawxiidka ku qoran yahay iyo lacagtiina Jamhuuriyadda Somaliland soo saarto inay ku sheegan inay daacish leedahay oo ay buuraha geeyeen cadow ay nagu yihiin awgeed ma ogtiin waxa la hadlaya shacabkan u nikinaya Puntland war Puntland waa cadawgiina ciidankiina qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee maalin iyo habeen dagaalka ku jira idinka baahan garab istaaga aad garab istaagantii cadawgiina caaqil Jambiir oo dhiibay rag ciidan gala khaasatan isla bahdiisa ah oo u dhiibay isla kuwii dacwada ku xasuuqayay maatida ee new booliska ahaa ayuu maanta gacanta u galiyay walibana uu ballan ku qaaday shakhsi kale oo ka dhashay isla beeshaas ciidan gale gaar ahaan bahdiisa oo isagu soo magacaabay in haddii ay xataa xarash yar ay gaarsiiyaan oo nabadda ka soo horjeesanaya inuusan aysan kula soconin oo xaq u leeyihiin inay dilaan ama base siday doonayaan ay ka yeelaan in wixii dhacay dadkii geystay ee ka soo jeeday ardayga guuleedii biisa ay soo qabteen way soo qabteen gacantana waxay u galiyeen dawladda waxaana go'aansadeen dawladdu in ay waajib sharci ka gudato oo la cafiin qodobka labaad guuleediyo bihiisu waxay go'aansadeen qof kasta oo ka soo jeeda guuleediyo bihiisa oo ka qayb qaata fal amni darro iyo burcadnimo oo gala waddadu waxa la wixii uu geystay hantiya inay keli ku tahay oo dhakadiisa tahay haddii uu nafgooyo in loo qisaaso haddii isaga lagu dilo inay hadur tahay oo cidna loo raacay qodobka saddexaad ee ku soo qaadanaya waxa uu yahay isla shakhsigani oo isagu habar yoonis ah oo isagu ka xadmariyay afartii xumaa ee tolkii ahaa ee ciidan gale ee afxumada iyagu tolkoodu geystay oo isagu xaal marinalkaasi ka bixiyay sida hadalkani uu dhigay eera banaa degayna waatiin ninkuna markuu cadhaysan yahay waxba lagama qoro berigii dhaweydaanu buuqaynay ee dee habar yoonis wax doonaysay ilmaadee rayaal anagu waanu fogaynay ciidan gale naga sokeeyo dee aanu ku war noo hadla hadalkii aanu u dirsannay hadday meel khaldan kaga dhufteen dee maanaan islahay inuu idin soo gaadhaya waa maqlaysaane meeshaa wixii ka soo duulduulay anaa reecaynaashaayo maanta maraya hortu xaal ka qaata waxay iga su'aala ninkaasi ma gobonnimuu sameeyey mise gunnimuu sameeyey wallaahi bilaahi gobonnimuu sameeyey oo boqolkiiba boqol maanta wuxuu mudnaa in lagu ammaano misana tolkii ay ku ammaanaan taa beddelkeeda maanta isla isaga ayaa tolkii afxumo iyo cay iyo in la daba galo oo la yiraahdo halku ku qaylo halku fadhiisto halku seexdo halku maraba heedhe ku shiida ku caaya ku ijaafeeya maadaama uu raali geliyay isla tolkii waa cuqdad raagtay oo yarkaasi qabo misra kula socdaan ku ka dhashay waana Paris baanu u ku nool yahay yarkan qoraalka inta le qoraya ee u jeedaan waa caqli xumo midii ugu dambeysay aan ku horeeyay caaqil Jambiir waxaan ku leeyahay adeer gacaliye maalinta dhexdeena inaga
xumaani ka dhacdo sidaasi nabadda iyo sharafta iyo gobonnimada ugama shaqaysid laakiin taa beddelkeeda kuwii maatideenna xasuuqay ayaad isla rag ka godooday oo gaadhi wadacad ku afduubtay oo qaarna xabad la dhacay ayaad maanta aad gacanta u gelisay waayahay ma xume gacan aad u geliside maanta maye kuwii maatideenna xasuuqay gacan miyaad noo soo gelisay xaashaa lilaahi cid gacan may kuu soo gelisay xaashaa lilaahi sidaa adigu aad u hadasho miyaa lagula hadlay xaashaa lilaahi sawtani maaha gunnimo aad markaa reerkaaga usoo jiidayso ciidan gale sidoo kalena kuwa jifadaada aad usoo jiidayso sidoo kalena guud ahaan reer Sheekh Isxaaq aad usoo jiidayso dhiigooda aad uga dhigayso timir xabaal taale inuu yahay maya way tahay waanad ku qaldantahay arrinkaasi 100% waxaa ku leeyahay raaligelin ka bixi intaas baa ku leeyahay adiga caaqil jaanbirow waayahay askariga furinta maanta jooga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaa ku leeyahay walaal gacaliye dadka la hadlaysa ee aad leedahay mageera ciidankiina qaranka oo ha taageerina hawniikina kuwii idinka cadaweydi ku ahaa walaal gacaliye waxaan ku leeyahay adigu ma qaldanido waxaad joogtaa furin oo adduunyo warkama haysid iyo waxa wadankii ka dhacayo dabadoodii iyo futadooda ayaa difaacaysa kuwaas iyaga maanta isku maqan laakiinse kuwaan maanta aad gobonnimada iyo sharaftaasi aad la rabtay dareyska aad u xidhatay dhiigga u shubaysaa waa kuwa maanta caqiladoodii salaadiintoodii suldaamadoodii haweenkoodii dhalinyaradoodii dhammaantoodba isku muuqdaan ee ay iyagu ay iswada fadhayaan waxa ayaan darro ah maanta in shakhsiyaad dhalinyaro ah oo isla Sacad Muuse oo afxumo dartood heeleli waa loo xidhay taa beddelkeeda aabahii dhalay afxumada ee afxumadani baray caruurtani afxumadana kaga keentay dhalinyarada sida gunnimada la inay hadasho in la isweydiiyaa ka qurux badan intaan la xidhan kaga keentay karimiyaanu ahayn liibaan al-cadaala maanta la jooga isla suldaankii reer Sheekh Isxaaq iyo sidoo kale boqor buur madow waa uu sharfan yahay karaamu maanta Hargeysa ku dhex leeyahay dhalinyaradu cuqdada isku gelinayay ee uu isku dilayay ee uu isku dirayay markaanu lahayn ka daa war maalin baa iman doonta dhalinyaradani ay noocadaada kale ay noqon doonto ayaan maalinta laga caban maalinta lahaa deeradero gacaliye maanta inay runtahay Soomaaliland rag oo dhalinyaradii uu afxumada kala dhex dhigay dhaqan xumada inta la kala dhex dhigay waa kuwaasi maanta iyo cuqdada inta la isku kala dhex dhigay waa kuwaasi maanta sidaas isku cayraya ee qaarkoodna la xidhay waa doqonnimo waana dulinimo markaa waan ku leeyahay laamaha ammaanka in maanta ninkii afxumada barayna oo halkaasi sharaf iyo sumcad ugu nool yahay kuwii oo cuqdada kala dhex dhigayna halkii iyaga la kala qaboojin lahaa qaarkood la xidho qaarkoodna la dhaafo adeer waxaa leeyahay markaa laamaha ammaanka faraya dhaqan xumo abiyaysan waxa ka soo bilaamatay nin kale intii kula socotay hadaad xiri weydeen oo edbin weydeen si ay ugu quus qaataan kuwa wadada ku soo jira ee u soo durdurinaya noocadiisa kale raba inay noqdaan si ay kuwaas ugu quus qaataan maadaama taas sameyn weydeen maanta kuwaasi aad xidheen ku seexda kula soo toosa boqolaal kale oo ila mid ah iyaga ayaa idin sugayo xaaladuna sida way ka sii adkaan doontaa war waxa la intay goor tahay arrinkaasi ha laga daba tago waxaan leeyahay Sacad Muuse cuqaashooda iyo ciidagale cuqaashooda war tolow intaan meel iskugu timaadaan xanaftii doorashadu reebtay iyo aflagaadadii iyo la isku geystay ay salaadiin ugu horeeyeen ee uu hogaaminayay isla caddo gude ee uu habar walo dhan ku tilmaamayay in ay yihiin ehlunaar war adiga maanta caddo gudow kullu finta cindi geel adig iyo gudidaadii waxaad samayseen ayaa dhalinyaradaasi maanta ay wadadeedii hayaane haddaad caqliyad leedihiin intaad u tagtaan tolkiin cuqaashooda iyo salaadiintooda iyo suldaamadooda ood isku timaadaan dhalinyaradaasi xanaftii aad kala dhex dhigteen hadday yihiin dumar iyo hadday yihiin rag dhammaantoodba kala maslaxa oo raaligelin ka bixiya dulinimadii aad beel kula kacdeen ee kala garan weydeen madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi reerkiisa Abarawal maanta idinka midida daabkeedii haye idinka ayaa la idinka fadhiyaa sidii aad hal u dhex dhigi lahaydeen dhalinyartaasi
uu kiciyey kaa bidaarta leh iyo kiina suldaanka sheeganaya dhinaca gude oo xataa kii reer Sheekh Isxaaq suldaanka uu mudaharaadada ku soo dhaweynayay kuwii iyagu siyaasiyiinta ahaa waxaas gudnimo dhacday ee xanafee dhacday ee salaadiin cumaamadii kaga dhacday ee sharaf daradaasi idin soo jiiday haddaydan gun ahayn inaxaasi aysan idinka wax xaqiiqa والله واحد لا يراني قريب بيدو كبحين أو دنيارتاسي ويدو كلا دوين داد سكلا دوين ويدان أو تكاسمين ويدان كو ساحدة كو صوت توسا كونا أبشرة والله وبالله والله واحد نحدينا كل حد دادان دوني دي خاصة إذا قرية ساعدي مصو dagaal ku inta uga sii ballaaran doona habar ba dib u ilaahay la isku dili doonay billahi tallahi 1991 baynu wada laaban doonaa hadaan gobonimadaasi la sameeyeen waradaan rabar wallahi waanu dul qaadanay si sharaf leh ku dul qaadanay weliga inta halka soo fadhiistay maanta ka hor sidaan u hadlaydin ma hadlin laakiin maanta waxa igu kalifay inaan halkaasi waxaan kala ilaalinayay ay ka soo birig taayaan oo ah inuu dhig Sheekh Isxaaq isku dhex daato taasaana keentay maalinta inaan sidaa qaawanadii la hadlo waxaan rajaynayaa inaan hadalkaygaas daweydii noqdo oo aad qaadataan oo aad isku soo dhaweysaan reerahaasi aad xumaanta kala dhex dhigteen cumaamada aad u sideen ee sharaftii iyo karaamadiiba cumaamadu lahayd iyo reernimadu ay lahaydba aad dhulka wala gasheen wassalaamu calaykum